الرحمن الرحيم وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. marka la soo furay Yaajuuj iyo Maajuuj oo maxay sameynayaan wahum min kulli hadabin yansiluun meel kasta oo taagana way ka soo degdegay way ka soo dhaadhacayaan ayuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala wali ma inaa sheegin cid ay yihiin ee waxaan sheegaynaa uun qofka muslimka waxa laga rabay inuu ka aamino Yaajuuj iyo Maajuuj rasuulkana dhageyso sallallahu alayhi wasallam في الحديث الذي ترويه زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وحيتري خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه يقول لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه حديثك وحي لا هي زينب أو haweenaydii rasuulka sallallahu alayhi wasallam waxay tiri rasuulka maalin soo baxay isagoo argagaxsan oo wajigiisuna cas yahay oo naxsan ayuu soo baxay rasuulka alayhi salatu wasalaam markaas waxa uu yiri la ilaaha illa allah kalmadii mubaaraka ee tawxiidka ahayd ayuu ku dhawaaqay rasuulku ilaah xaq lagu caabudaa ma jiran ilaahay ahayn hoog baa u sugnaaday carabta muslimiinta hoog baa u sugnaaday carabta hoog baa u sugnaaday من شر قد اقترب شر سود دوادونا uga sugnaaday hoogaasi waa shar soo dhawaaday maxaa markaa dhacay waqtiga rasuulka sallallahu alayhi wasallam futiha al-yawma min radm ya'juuj wa ma'juuj mithlu hadi maanta dayrkii ya'juuj wa ma'juuj lagu xiray inta in leeg baa laga furay buudi waa goorba waa 1400 iyo dhowr iyo 40 sano ka dhowr iyo 30 sano ka ayaa inta laga furay rasuulku la maanta inta kulay laga furay ilaahay baa garanaya subhanahu wa ta'ala ilaahay baa garanaya inta laga furay ilaahay baa garanaya laakiin waxaad ogaataa inaynu u sii dhawaanay ogaada markaas rasuulku muxuu alayhi salatu wasalaam futiha al-yawma min radmi ya'juuj wa ma'juuj مثل هذه وحلق بإصبعه الإبهام والتي تليها لبدا سوق عبد الرسول عليه الصلاة والسلام كدب واحد زينب أميانا لها لاقي رسولك إلها يو يضو دد وناكسنا في عن ددك الركع سجد كأها قيام الليل ككعي صدقات كبحنية وناكسنا أي نقول جرا هذا رسولك لمركا حمان طبلته ولا يدوم ده هلاقي إذن حديث كأي نكفى إذني أن يأجوج ومأجوج سيخرجون وأنهم إن أيهين ضد مال كحرا أو لغو حري قف كستو أو مسلم وحلقة ربا وحي كتاب كي سنها كوي مدى يأجوج كصابسا إنو الرمية لغا ربا وحان صاولها وحاجر ضد مركاسي أي عقوش الرغن تهي عقولهم منكوسة عقل جوجا الرغن سيادرات دوي ضفيران يأجوج ومأجوج أما ضد كليبا كو شيغان با أما ضد كليبا كو شيغان إذن خلق نبي آدم عليه السلام إلهي كتفيري ويبديهن مرة قرنينه يأجوج ومأجوج وحادقاتا إليهن من ذرية آدم عليه السلام وهما قبيلتان عظيمتان وأنا لبق قبيل أو آدي آذ وين لبن الماء يأجوج ومأجوج ولبق قبيل أو آذ وين لقي سهدة ومركا إلهي سبحانه وتعالى وحين أغنهي وقت النبي نوح عليه السلام إن وحلو وحي بني آدم أها للدبر جري وحي أنكاهين أيوه وحي أنكاهين نبي نوح يعيد الرعب الدوني ذا فوشة انت كلا أوردن دك وحلقات ولا بابي طيب إذن يأجوج ومأجوج ما حي صوق لأن هدرة من ذرية نوح عليه السلام وتفيرتي نبي نوح نبي نوح صدح نين أيود دلي أو ضدك كتفيرمين وصام يا حام يا يافث نمن كان تفيرت يافث ويان وحي اسوق قليه تركي جاي جينا يوحنا نبي اسوق قليه وحالا يدهضا تركي جان أدركتان يوحنا ماشنا ودن أدركتان وقيفتي كهردي مركي ذو القرنين ونمن كدير ككحري قيفتي دبدا وقام مغريد ويان
intii kalena halkaasay ku xidhan tahay waa idinka arkaysa wagihiin nimankana saasun bay wagihiin idan waxaa leenahay yaajuuj wamaajuuj waa min duriyati aadama calayhi salaam wahumaa qabiilataani cadimataan min awlaadi yaafith awlaaddiisi iyo tafiirtii ka tafiiratay weeyaan inay dadka ka badan yihiinna waa adiga arka meeshay ku xidhan yihiinna ilaahay baa ugu talagalay subxaana wa tacaala wakhtiga ay soo baxayaanna waa wakhtiga saacadda qiyaamo soo dhowaato waxa ay leeyihiin iyo waxyaabaha ay markaasi wataan iyo sida ay markaa dhulka u galayaanna ilaahay baa inooga sheekeeya subxaanahu wa tacaala halkay degan yihiin markaa nimankani waxay degan yihiin fi ljaanib alaqsa minha sharqan dhulka dhinaciisa bariya ugu fog bay degan yihiin waxa ay yihiin dad shar iyo fasaad iyo dulmi ku caana dulmigooguna waxaa u daliila laba arrimood arrin hore u dhacay iyo arrin soo socda arrinka hore u dhacay waxa weeyaan waa arrinkii qur'aanku inooga sheekeeyey ninkii boqorka ahaa ee dulqarnayn la odhan jiray wakhtigiisii ayaa nimankani sad ku xidhnaa ma jirin haba yaraatee markaa dhulka way fasaadiyeen sidii uu u dawaafayeen markaasi boqorka dulqarnayn siduu qur'aanku inooga sheekeeyey wuxuu u yimid qolo wax alla waxay fahmayaan aanay jirin luqadda dadka kalena ma fahmayaan luqadoodana la fahmi maayo ilaahay wuxuu fahansiiyey markaa dulqarnayn way la hadleen qaaluu yaa dalqarnayni ina ya'juuja wama'juuja mufsiduuna fi lardi fahal najcalu laka kharjan calaa an tajcala baynana wa baynahum sadda laakiin waxaad ogaataa uun aayaadkan qur'aanku inuu ka warramayo wakhti hore u dhacay oo dhulka ay fasaadinayeen inuu jiro qoladaasina ay markaa dilqarnayn yidhaahdeen waxbaanu ku siinaynaaye annaga iyo ya'juuj iyo ma'juuj qolaa ay dhibaan bay ahaayeen kuwaasi nooga samee xaj iyo markaa sadi noo dhexeeya laakiin dilqarnayn muxuu yidhi maa makkannii fiihi rabbii khayrun faaciinuunii biquwatin ajcal baynakum wa baynahum radmaa wuxuu yidhi wuxuu allay siiyey ayaa waxaanaad isiinaysaa ka khayr mishaarka iyo waxaa weeyaan waxa baan ku siinaynaada wax alla waxaan ku falaya ma lehe dad shaqeeyaan u baahanahe keena buu yidhi dad soo saara faaciinuunii biquwa xoog igu kaalmeeya buu yidhi dadkeena xoog bay ugu kaalmeeyeen sidii markaa uu amray bay sameeyeen aatuunii zubara alxadiidi xataa idaa saawaa bayna asadafayni waa labada buurood madaxooga markuu sumay oo xadiidkii lagu simay siduu qur-aanku inooga sheekaynayo qaala anfukhuu xataa idaa jacalahu naaran qaala aatunii ufriq calayhi qitran waa nuxaas la dhalaaliyey fama staacuu an yadharuuhu wama staطaacuu lahu naqban nimankii ya'juuj iyo ma'juuj dayrkaasi oo ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa tacaala in dadka lagaga xidho wakhtigaa ayaa lagu xidhay may karin buu ilaahay yidhi inay deyrkaa ka soo dhaadhacaan manay karin inay hoosta ka soo qodaan laakiin goormay soo baxayaan haddaba فإذا جاء وعد ربي جعله وكان وعد ربي مر الله مركه وعدك إلهي ما ده الدنيا جبتها هي مركه لله إذ ما يين صباحان دير كي أتكا حديث كاسي وحال إسكجي باب بين قريان حاجة سك صباح يا مركه بل حديث وحكوا السجن إن مركه سينما كاني أي صبح والبقضان ماشى صبح والبقضان markay u dhowaadaan cadceedda shucaaceega inay arkaan ayaa waxaa midkoodii shaqada maamulayaba wuxuu odhanayaa barraynu u soo noqonaynaaye halkaa ku daaya way iskaga soconayaan barri markay soo noqdaanna sidii buu ku noqonayaa markaasi sadigii ama dayrkii lagu xidhay sidii buu ku noqonayaa dib bay haddana u bilaabayaan shaqadii saasay u soconayaan ilaa marka dambe ilaahay uu rabo inay soo baxaan ayaa midkood baa waxaa lagu ilaahaminayaa inuu yidhaahdo barraynu u soo noqonaynaa in shaa allah buu odhanaya intii hore o dhan in sha allah ma ilahayn oo ilaahay baa ilowsinaya subxaana wa tacaala markaasuu odhanayaa barraynu u soo noqonaynaa in shaa allah waayahay way soconayaan berri waxay soo noqonayaan isagoo halkii ay gaadhsiiyeen ah aayarun bay daloolinayaan way ka soo baxayaan markaa khalaas xataa idaa futixat ya'juuj wama'juuj wahum min kulli xadabin yansiluun halkaasay ku xidhxidhan yihiin sharka intaa leegna way leeyihiin waktigaa isaga ah ayaa bartaa lagu xidhay ayib iminka miyaa markii nebi ciise calayhi salaam iyo dadkii raacay markii la yidhi buurtaa isku qariyay buurtii jabal tuur ay fuuleen
ayaa ooda laga soo sii deynayaa nimankan ya'juuj wa ma'juuj wahum mufsiduuna fi lardi iyagaa dhulka fasaadinaya maxay samaynayaan markaa waxay samaynayaan ugu horeynba markay soo baxaan tuur kasta way ka soo dhaadhacayaan markaasaa kuwa ugu horeeya waxay soo marayaan calaa buxayrati tabariya waa bad u dhaxaysa markaa bad yar oo u dhaxaysa urdun iyo filistiin halkaasay soo marayaan waxa la waxa biyo ku jira ayay heeminayaan way cabayaan maxaa dhacay markaa baddaa markay soo maraan bay gebigeegaba heeminayaan inay dad intaa leeg weeyaane kadib baa waxaa dhacaya kuwii kale ee ku xigay kuwaasi ayaa waxay odhanayaan halkan biyaa ku jiri jiray waa badii dhannayd waxay odhanayaan kuwa ka dambeeya halkan biyo ayaa ku jiri jiray fayaquuluuna laqad kaana bihadihi maratan maa'a uma yasiiruuna xataa yantahuu ilaa jabali bayt almaqdis waxay tegayaan buurta bayt almaqdis bay tegayaan waa markay dhulka fasaadiyaan nebi ciise calayhi salaam iyo dadkii raacayna meel bay markaa ay ku qarsoon yihiin dhulkii meel kasta ay markaasi fasaadiyeen kadib baa waxay odhanayaan waxalla wixii dhulka jooga wey innagaa dillee dadkii cidda samada inoo hadhay bay odhanayaan bal fasaadkooga ka waran nimanka dhulkii waynu ka faraxaleennay waxaa inoo hadhay maxay dadka samada inoo hadhay yani samada inoo hadhay cidda ku nool markaasaa leebabka ayay samada kor ugu tuurayaan waxay soo noqonayaan leebabkiioo dhiig leh ayaa soo noqonaya nimankan waa niman bani aadama oo kibray oo mufsidiina waa la sii imtixaamayaa waxa weeyaan allahuma salli meel daran baa laga sii ridayaa ilaa marka ay yidhaahdaan dhulkii dadkii samada ku noolaa iyo ciddii dhulka ku noolaydba waanu ka adkaanay bay odhanayaan markay heerkaa marayaan nebi ciise iyo markaasi allahuma salli dadkii raacayna ay go'doomiyaan wax alle wuxuu tegayaa aanay jirin wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam xataa yakuuna ra'su thawri liaxadihim khayra min 100 diinaar liaxadikum alyowm madaxa yani gaajada haysata daraaddeed ayaa dibiga madaxiisa ayaa wuxuu uga qiimo badnaanayaa 100 diinaar waa dahab 100 diinaar oo maanta midkiin uu markaasi haysta siduu ugu qiimo leeyahay agtiisa ayaa dibi madaxii baa qiimo la lahaanaya waayo waa la go'doomiyey meel ay u soo baxayaan ma jirto gaajaana dishay haddaba nebi ciise calayhi salaam iyo nebi ciise iyo dadkii la socday ilaahay bay baryaan yaa rabbana ilaahu kuwa naga foge ilaahu kuwa naga badbaadi maxaa dhacaya markaa fayursilu allahu calayhim annagafa fii riqaabihim ilaahay wuxuu u soo saarayaa dirxi ayuu u soo diray ilahay waxba kuma aha subxaana wa tacaala nimankaa la kari waayey dirxigaa unbaa lagu soo dirayaa nin walba bartaa unbuu ka galayaa mar keliya wada dhimanayaanba ilaahay subxaanahu wa tacaala yaa ka xoog wey urtoodii baa meel kasta buuxinaysa urtoodii iyo jidhkoogii ayaa meel kasta buuxinaya meel taaka la dhigaa ma jirto ilaa hadday jirto mid baa markaa meydkiisu yaallaa mase ma mari karaan markaa nebi ciisiya dadkii raacay ma mari karaan meesha maxaa dhacay haddana ilaahay bay baryeen ilaahow naga qaad ilaahay bay baryayaan ilaahay markaa wuxuu u soo dirayaa shimbiro qoorta geela le ayuu u soo dirayaa kuwaasaa qaadaya markaa meel ay geynayaan ilaahay unbaa garanaya subxana wa tacaala markaasaa dhulka ilaahay roob buu keenaya ina urtii baa laga sii maydhayaay roobkaasi guri markaa dhagax ka samaysan ama laban ka samaysan ama suuf ka samaysan ma jiro ilaa hadduu jiro uu galaya roobkaas ilaa dhulku noqdo markaa sida muraayadda oo kale halkaa marka la joogo ee ya'juuj iyo ma'juujna ay afka goosteen nebi ciise calayhi salaam dadkiina ay markaa halkaa ku jiraan ayaa barwaaqa la galaya barwaaqada la galaya maxaa ka mid a dhulkii baa ilaahay odhanaya barakadii aad lahaan jirtay soo celi barakadii way soo noqonaysaa ilaa kooxdu xabad rumaana ay wada cunaan xabad rumaanku intuu leegi waad aragtay sooma qof keliyuun bay ku filan tahay koox dhanbaa cunaysa xabadda rumaanka ah yaa barakada gelinaya ilaahay baa gelinaya subxana wa tacaala ma intaa keliya maya wayastadiluuna biqixfiha waxay hadhaysanayaan waa qalkeegiina way hadhaysanayaan qalkeegii ayay hadhaysanayaan ma intaa keliya maya waxaa la barakaynayaa xaymihii ariga hadday noqoto hadday geel noqoto waa la barakaynaya xataa ana alliqxata min alibil midda irmaan ee markaasi geela ka mid ihi maxay deeqaysaa caanaheegu maxay deeqayaan la takfi lfi'aama min annaas kooxo fara badanoo dadka ka mid a ayay deeqayaan
neefka lo'da ee irmaanna wuxuu deeqayaa qabiil dhan ayaa caanaheegu ku filaanaya qabiil dhan taan ka sheekaynayna waxaad ogaataa waa qiyaamu saaca markay soo dhawaato ilaahay koonka isaga iskale wuxuu doono barakada ilaahay baa geliya subxaanahu wa tacaala caqligaagan yar ee xadaysan ha ku fikirin markaa oo hodhan muxuu ahaa neef dhan siduu qabiil dhan uu markaa u deeqaya hayso odhantaasi waxaad ku fikirtaa sharciga ku fikir sidaa markay arrintu noqoto ayaa wuxuu rasuulku sii sheegayaa dhegaysta marka yaajuuj iyo maajuuj ay soo baxaan in guriga ilaahay la xajiyi doono oo qaar dawaafi ay jiri doonaan oo weli xajku uu soconayo laakiin dee waxyaabo waaweyn baa hadhay halkaa marka la joogo maxaa dhacaya waa inoo jimcaha dambe insha allahu tacaala